Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijkeena sahanka dal oo aan maanta diiradda ku saari doono haddii uu Rabbi inoo oggolaado waddan jasiirad ah oo ku yaala bartamaha badweynta Atlantikada dhinaca galbeed ee xeebta waqooyiga Afrika. Inta aan u gudagelin muuqaalkeena haddaad ku cusub tahay channelka kusoo biir video like noo saar mahadsanid. Cape Verde ama Ra'sul Akhdar waa dal ka kooban ilaa 10 jasiiradood oo volkaan ku sameysmay. Waxay 385 mayl ama 620 kiiloomitir u jirtaa xeebta Senegal ee badweynta Atlantikada. Jasiiradda waxaa helay badmaaxyaal isugu jira Talyaani iyo Boortaqiis qiyaastii sanadka markuu ahaa 1460 miilaadiga sida ku cad diiwaanada rasmiga ah ee Boortaqiiska. Sahminta koowaad waxaa sameeyay sahmiyihii Talyaani Antonio De Noli. Waxay sheegaan in jasiiradda aan la deganeyn ka hor imaanshaha reer Yurub. Waddankan waxaa gumaysan jiray dalka Boortaqiiska waxa uuna xornimada ka qaatay sanadkii markuu ahaa 1975 miilaadiga. Magaca waddanka waa erey Boortaqiis ah, tusaale Verde waa erey Boortaqiis ah micnihiisu yahay cagaar. Luqadda rasmiga ah ee looga hadlo waddanka waa Boortaqiiska. Ballaca dhul ahaan uu ku fadhiyo waxay gaarayaan ilaa 4033 kiiloomitir. Dadka ku nool waxay gaarayaan waddankaas ilaa 750,000. Jamhuuriyaddu waxay ka kooban tahay 9 jasiiradood oo la degan yahay iyo hal jasiirad oo aan la deganeyn. Jasiiraduhu waxay ka kooban yihiin laba qaybood, jasiirado buuraley ah oo adag iyo jasiirado siman. Jawiga jasiiraduhu waa mid iska meel dhexaad ah sanadka oo dhan, sababtuna waa badda. Caasimadda waddanka waa Praia, waxay dhacdaa jasiiradda Santiago. Magaalada ugu muhiimsan ee udub dhexaadka u ahna waa Mindelo. Calanku wuxuu ka kooban yahay 4 midab oo asaasi ah. Waa buluug oo matalaya badweynta Atlantikada iyo 2 xariiq oo cad oo leh xariiq cas oo dhexda ah oo matalaya habeenta iyo dib u dhiska. Halkaas oo midabka cad uu taagan yahay nabadda, guduudkana dadaalka. Sidoo kale waxaa ku yaala 10 xidigood oo yaryar calanka oo matalaya 10 jasiiradood ee sameysma Cape Verde. Jamhuuriyadda Cape Verde waxay maamul ahaan u qaybsan tahay ilaa 22 degmo. Haddaba waxa kamid ah kasoo qaadan waxaa kamid ah Santiago, Santa Cruz, Praia oo caasimad ah, Beira Grande, Santa Catarina, Brave, Boa Vista, Ribeira Grande. Dakhliga ugu badan waddanka waxa uu kasoo galaa kalluumeysiga iyo beeraha sida qasabka, sonkorta, mooska, bunka, fuulka iyo bataatiga. Dhankan kale ee badda ahna isha koowaad ee dhaqaalaha waxaa kamid ah cusbada Malayga nuuciisa la dhaho tuna oo ay caan ku yihiin dadkan. Dadka ku nool waddankan intooda badan waa Masiixiyiin. Islaamka said ayuu ugu yar yahay oo waxaa la ilaa 2% amni gaarsi ama ilaa 1%. Haddaan u imaano habka maamulkooda waa jamhuuriyad dimuqraadi ah. Madaxweynuhu waa madaxa dowladda waxaana lagu doortaa cod dadweyne muddo 5 sano ah. Ra'iisul wasaaruhu waa madaxa xukuumadda waxa uuna soo magacaabaa golihiisa wasiirada. Ra'iisul wasaaraha waxaa soo magacaaba madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana ansixiya golaha shacabka. Xubnaha golaha shacabka waxaa lagu doortaa cod dadweyne muddo 5 sano ah. 3 xisbi ayaa hadda kuraas ku leh golaha qaranka. Waxaa la kala lahaa PSV40, MPD iyo midowga dimuqraadiyadda ee madaxa badanaan. Madaxda soo martay waddankan waxaa kamid ah madaxweynihii ugu horeeyay ee waddankan uu yeesho waxa uu ahaa Aristide Pereira. Waxa uuna dhashay sanadkii markuu ahaa 1923. Xilka waxa uu qabtay sanadkii 1975 miilaadiga. Waxa uuna hayay ilaa 15 sano. Waxa uuna dhintay sanadkii markuu ahaa 2011. Madaxda kale ee waddankan soo martay waxaa kamid ah Antonio Mascherino, Pedro Biales. Cimilada waddanka haddaan wax yar ka miicsano waxay u qaybsan tahay 2 oo ah waqooyiga iyo koonfurta. Waqooyiga intiisa badan waa lama degaan oo 100 milimitir wax camala oo roob ayaa ka daa sanadkii oo dhan. Waxaana loo yaqaanaa Barlavento oo ka kooban ilaa 6 degmo. Halka jasiiradaha koonfureed ay helaan inta u dhaxaysa 200 ilaa 300 oo milimitir oo roob ah. Sidaa darteed waxay leedahay jawi nus lama degaan ah. Intaas ayaan jeclahay inaan ku simo muuqaalkeena aan ku eegayna Cape Verde. Inta aan ku kulmi doono muuqaalkiisa xiga. Assalaamu calaykum.